I hope inay wax walba caadi yihiin. Marka afartan gabdhood waxay ahaayeen runtii afar gabdhood oo aad u la yaab badan. Way waxay ahaayeen walaalay ahaayeen. Afartan markii ay magaalada afar gabdhood baa sheekada ka bilaabaya. Xataa salaantii fahmi salaamu calaykum xataa ma jirto miyaa say wax wada maanta salaantii jiirmiya cunay micnaha waa sidee. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحبنا قيمة بدنا كحرين channel كده بينها يوتيوب صاحبي وقالي صاحبي إنه كلا بعدني I'm back once again ladies and gentlemen. سودو هذا مركله سوسو نقط واحد هو نكسر الحمد لله هو أنا عاف ما قباه إذا كنا صدق كلا إن عاف ما قبتان أي رجينية. أوكي هدي هالكاسي اللي كيسو قبته ما أنت واحد إذا سيدا قصرنتي هذا الله يابضن بعدين واحد كده عظيم ميت كم إذا تولوينك تلك السعودية عربية وأنا دعذ رنتي لياب كل نقطي شعبك تلك السعودية عربية وحنا دعذ لبضي يكون يكوبي طبنكي أي دعذني waxay ku saabsan tahay afar gabdhood oo walaalo ah oo imtixaan ah oo runtii aad u la yaab badan balse intaanan hore ugu socon waxaan ka codsanayaa fadlan muuqaalka inaad like saartaan si aad wax u fahansiisaan YouTube algorithm-ta magaratay markaad like saa ugu yaacsan aad comment-iyo soo qortaan waxa soo runaysaa muuqaalkani waa muuqaal soconaya dad badan si tus marka like-ta comment-iga wax walba aad muuqaalkan gudihiisa ku qaban kartaan aad awoodi kartaan wax tarayay tahay aad bad maatantiin okay haddaba hadeen hore ugu socdo dhacdadan maalin maalmaha kamid ah waqti casar ahayd ayaa tuuladani haddaba ku taala dalka Sacuudi Arabiya waxa soo galay afar gabdhood afartani gabdhoodna intuu waxay ahaayeen walaalo okay waxaanay ahaayeen afar gabdhood oo muuqaalkooda markaad sidaas u aragtidba aad ka dareemaysid inay walaalo yihiin waana walaalo isku xigxiga afartani gabdhood haddaba ta ugu yar waxay ahayd 9 sano ta ugu weynina adug dooriyo 20 jir ayay ahayd afartani gabdhood oo xijaab madmadow ku labisan oo lugaynaya ayaa waxay soo galeen haddaba tuuladan markay sidaas u soo galeen gurihii magaaladaasi ayay sidaas ish u mariyeen xoogay way socdeen haddaba gurihii ay mariyeen mid kamid ah ayaa waxay go'aansadeen in ay ku gargaraacaan albaabkii soo hor istaageen way gargaraaceen albaabkii markii laga furi waayay ayaa waxay sidaahdeen gurigan malahooba laga guure inaga keena mid kale ku daynaa si u socdeen guri kale ayay gargaraaceen haddaba gurigii markii xoogay yara gargaraaceen waxa ka furtay gabadhii markii sidaas uga furtay salaamu calaykum gabadhii soo fiirsay maxay ka caawiyaa gabadhii ayaa waxay ku yiraahdeen walaal naga raali ahow magaaladan marti ayaan ku nahay imikadan ayaanu soo galay marka waxaan doonaynaa inaad naguna caawisid laba midkood in gurigiin inaad caawo ina bariisaan si aan anagu hawlaheena bari u qabsano oo wax u raadsano amba gurigiina laftirkiisa aad qol kamid ah aad naga kareysaan si anaga iyo gabdhahani walaaladay ay u degno gabadhii ayaa waxay ugu jawaabtay walaal raali ahaada guriga nagar waa guri iska yar guri marti badan qaadaya maaha sidoo kalena waa iska barakeysanahay dadku sidoo kalena waa iska barakeysanahay wiilal iyo gabdho oo buuxa yani guri xataa iska badaayo kara xataa meel aan caawil seexino waa kaana sanad hashan laakiin hal talo ayaan idin hayaa okay ma sha Allah waa si wanaagsan halka wana si waadi halkan idin haya ayaa waxa jira nin wadaad ah imaam masjid ah ninkaasi ayaa idin tilmaamaya gurigiisa tagaysaan asaga ayaa guryaha iyo waxyaabahaasi kareeya oo dadku oo ku caan ah dadkii wax kareynaya asaga ay u tagaan oo yiraahdaan guryaha noo karee kuwa wax kareysanayana asaga ay u tagaan oo ku yiraahdaan guri karaa hadii ay sidii nasiib marka ninkaasi ayaa idin tilmaamaya waa nin wanaagsan oo guba ninkaasi ayaa idin tilmaamaya oo si wanaagsan oo hayna hormar waayahayna mar gabdhihii ayay hormartay sidii u waday ninkii imaamka ah gurigiisa markii aragtay ay ku tiri guriga markay sala ka muuqdo sidii u waday sidii gabadhii u hor socotay ayaa sidoo u socotay gurigii wadaadkii markay aragtay ayaa farta ugu fiiqay tiri guriga albaabka noocaas markaysan kaasi ku garaaca guriga imaamku kaasi okay sidii u socdeen haddaba gabadhii ayaa wadaadkii imaamka ahaa albaabkiisii bay garaaceen dhaw waxyar kadib waxa ka furtay marwadii guriga xaajiga ayaa albaabka soo furtay albaabka markay soo furtayba afar gabdhood oo xijaaban oo isku eg ayay aragtay saad markuu aragtay way yaabtay bismillaahir rahmaanir rahiim waxa idanka madaxa ka soo galeen salaamu calaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxay fuurinayaan si fiican uma hadlayaan haye ishfeekum maxay ka caawiyaa khayr
gabdhihii haddaba gabadhii ugu weyneyd oo hogaaminaysa saddexda kale ayaa hadasho oo waxay tidhi waxaan u baahannahay naga raalli ahow waxaanu u baahnayn inaanu la kulanno wadaadkii guriga xaaji hebel oo magaciisa gabadha usoo sheegtay yaa way yaabtay talo maxay xaajiga ka rabaan yaa xagee kuwa naga soo galan talo yaa ma qaraabadiisii baadiyaha ma qolyo kala way yara yaabtay ayadoo wejigooda iyo muuqaalkooda iyo markay xoogay wejigooda markay akhrisatay aanay jeclaysan sidii u egyihiin indhahay taagtaagayaan hareeray fiirinayaan yani adigu anyway soo galbay ku tiri soo dhawaada albaabkii dibadda ayaa ka furtay ayadoo dhinacna ka argagaxsan gurigana caruurteeda yaryar iyo ayadoo kaliya ayaa joogay markaas ayadoo ka yara shakisan oo isle armay kuwani ku galaan armay balaa kala sidaan ayaa haddana adigu way ka furtay oo soo galbay ku tiri albaabkii dibadda ay ka furtay deetana waa xidhay waxay ku tiri ninka wadaadka ay wuu maqan yahay shaqooyinkiisii hawlihiisu ku maqan yahay laakiin waan wacayaa waan garaacayaa deetana asaga ayaa xagga noogu imanaya ee daaradda ayay kuraas u dhigtay tiri halkaasi kasii sugantu imanayaba sidii ayay sameeyeen kuraastii usoo dhigtay iska fadhiisteen xaggii ayay iska yara sheekaysanayeen gabadhii guriga ayay gashay wadaadkii ayaa la xiriiray ku tiri xaaji hee xaajiyo xaaji dad ayaa gabdho ayaa ku sugaya billah wadaadkii ayaa yaabo sii bismillah gabdha yaa waraha ma gabdhihii madrasada waxa ku baraysaba ma qolyo kala mu'aamarada ma gabdho si kala duco raadsanaya yaa uu isweydiiyay adigu waxba isweydiiyay wuu yaabay si kasta hatay hay xaaji anaa imanaya gurigii markii uu sidaas u soo galay waa uu yaabay gabdhihiiba hal mar kuraastii ka wada kacay salaamu calaykum kuraastiiba ka kaceen xaajigii buu salaamay say wuxuu jiraan gabdhihii markii haddaba aragtidii hore saa u qiimeeyay gabdhahan inay wax weyn ka qaldan yihiin ayuu wadaadkana dareemay yacni habdhaqankooda markay hadlayaan hadal iyagoo kala hadlaya indhahay taagtaagayaan yacni wadaadkii aragtidii goobaadu gabdhahan sidaas u arkayba inay wax weyn qaldan yihiin ayuu dareemay say wuxuu jiraan adeer maxaa idinka caawa gabadhii weyneyd baa hadashay sidii caadada waxay ku tiri aniga iyo gabdhahani walaaladay magaalada waynu ku cusubnahay waxaa naloo sheegay inaad guryaha karaysid markaa caawo maadaama dee xilli dambe iska tahayba waqtigu iska maqaarib yahay waxaan u baahnayn inaad guri kiraa haddii aad haysid wixiina waan haysanaa lacagta kirada waanu bixinaynaa aad naga karaysid haddii waqti xaadarkan guri kiraa aanu kuu diyaarsanayna waxaanu kaa codsan lahayn inaad caawo namarti soo hortid aniga iyo gabdhahani walaaladay dherilahay horilaahay wuu yaabay ninkii wadaadka ahaa su-aalo fara badan oo isdhex yaacyaacaya ayaa maskaxdiisa ka buuxsameeyey wuxuu isweydiiyey gabdhaha muuqaalkoodii markii uu sidaasi u qiimeeyey waa gabdho yaryar oo dhalinyar ah ta ugu weyn waa ilaa 26 jir meelaha wey iyo ta ugu yaro aduguna 9 jir meelahaas adeer bar runta ay sheego gabdho walaal ah oo iska socdoon oo hal meel magaalada soo garo guri iga kareeyay yiri wali maan arage say wuxuu jiraan yaa tihiin xagee ka timaadeen magaalo heblaayo waxa ku dhaahdeen magaalo heblaayo ayaanu ka nimid waxaanu sidoo kale u soconay magaaladeena oo u sheegeen marka magaalada magaceeda ma garanayo inaan dib u noqdon akhriye noqonaysa inaga daay magaalo heblaayo oo yacni oo aad u fog ayay u tilmaameen oo adigu ilaa 5 saac loo soconayo xagaas ayuu guriga nagi rasmiga ku yaala xagaas ayaan u soconnaa marka in muddo ayaan xagan jooginaa lacalla yacni isbuuci meelaas ayaan jooginaayo adigu inaan yara shaqaysano oo lacag iyo nool iyo xayira diyaarsano oo deetna aan sidaasi hore ugu sii socono ayaan doonaynaa ayaa ku dhaxdeen uu aamini waay gabdhihii haddaba wuxuu isku dayay bal inuu si fiican u fahmo su'aalu weydiiyaa su'aalii isla su'aashu haddana gabadhii mid kale weydiiyaa hadalladoodii wuxuu arkay isla dhaafaya iyo gabdhihii oo aanu jawigooda deganayn markiiba waxa maskaxdiisa ku soo dhacday inay gabdhahani baxsad yihiin yacni habkay ugu sheekeynayeen ayuu wuxuu kala soo dhaxbaxay adigu inaan gabdhahani caadi ahayn oo adigu qalad weyn jiro halka igu suga buu ku yiri dib ma laha halka igu suga gurigii ayuu galay markiiba ninkii wadaadka ahaa waxa uu la xiriiray biliiska bal muxuu gabdhaha yar masaakiinta biliiska ugu wacay biliiska ayuu la xiriiray hay maxaa dhacay maxaa jira biliiskii ayuu arintii u sheegay wuxuu sheegay 4 gabdhood oo walaal ah in ay gurigiisa joogaan sheekooyinkii uga sheekeeyeen iyo sababihii uga shakiyay ayuu haddaba biliiskii uga sheekeeyay biliiskii haddaba markii ay maqleen 4 gabdhood oo walaal ah markiiba waxay yiraahdeen 4 gabdhood oo walaal ah hay bartaada ku hay yaa way haba bisinka so 4 gabdhood oo walaal ah ma aha oo adigu 20 jir iyo 9 jir meelahaas 8 jir laftirkooda way bartaada ku hay yaanay ka baxsan gabdhahaasi nala siisu wuu yaabay maxaa jira maxaa jooji warka dhan adigu intaas uu caawi hay
gabdhihii adigu sii yara maaweeliyey wuxuu yidhi waa dhib ma laha caawa martibadii ahaanasaan dhib ma laha iska jooga. daqiiqada yar kadib bilayskii Sacuudi Arabiya yaacaya ayaa gurigii u tilmaamay toosu soo istaagay albaabkii gow ninkii imaamka ahaa iyo xaaskiisii caruurtiisii yaab gabdhihii yaab ninkii wuu yaabo wuxuu yidhi gabdho yar yar oo dhiban iyo waxba naga sheekeeyay waa ciidankan yaacaya ay soo galay war gabdho maxay ahaayeen ma argagixisa say wax u jiraan ma wuu yaabay adigu gabdhihii yar yara lagama hadlinba dhab waa la qabtay gaariga ayaa lagu riday xabsiga ayaana loo taxaabay. haddaba su-aasha aad isweydiinaysaan waxay tahay gabdhahan yaryar ee martida ah ee gurigan soo galay ee ka dalbaday ninkani inuu bariyo ambaba si uu guriga ka kareeyo sababaha ay bileysku ugu soo yaacaan ururiyeen gabigoodaba ay xabsiga ugu shubeen maxay tahay ana idinka dib geynaya. gabdhahani haddaba waxay ka yimaadeen magaalo aad uga fog magaaladan. gabdhahani haddii aan dib ugu noqdo oo idin fahansiiyo waxay yihiin gabdhahan hooyo iyo aabe ayaa dhalay hadama dhagaxaan badhay laha waxaas ayaga oo kaliya ma aha hal wiil ayaa raaca yacni walaaladood guud ahaan waxay ahaayeen 5 oo wiilkaasi ayaa 5 ku ahaa. wiilkani haddaba waxa uu ka yaraa gabadhii ugu weynayd. haddaba maxaa dhacay see wax u dhaceen gabdhahani walaalada ah iyo wiilkani walaalkood ah ayaa ahaa dad aan isku san banaaneen yacni isku maanay wacnayn. wiilkani waa uu la dagaalami jiray waa uu jir dili jiray يعني وانكي وانك كليه غوريغا بو اها hadii qala sameeyaan dhaydaas ka saarayay hadii uu arko ayagoo faarax salaamaya cadaabaha ayuu jirsiin jiray guriga kamaana bixi jirin hadii qalad yar loo soo sheego gabigoodaba saas ayuu ka dhigi jiray. yani waxaabay ahaayeen inta kaliya ka adag yahay xaafadaha dhanba inta kaliya ka adag yahay waxay ahaayeen walaaladii asnada kulay idib bar buu islaha sayla tahay laakiin farxadda ay ku haysteen walaalkood iyo dhibta ay ku haysteen waxa badnayd dhibta oo kumaanay faraxsanayn wiilkan. inta uu wiilkaasi guriga joogo waxay dareemi jireen inay maxaabiis yihiin. intaasi waxa uu dheeray gabadhani walaashiisa ka weyn oo ahayd ayadna masiibo balaaya ayaa ayada oo yar al arabtu xaasidsana ayada oo yar oo dhoori oo meelahaasi yani tadeedu 13 jir aad u yara ayaa la soo doontay. markii la soo doontay miskiintii yaray odaygii abeedaha wuu bixiyay waa la guuriyay. ninka weyn oo iskaabulnimada ku daahay oo ku raagay ayaa gabadh yar oo curdin ah oo 13 jir meelahaas oo aan reer dhaqasho iyo adduunyada waxaasi aan garanayn oo imika adduunyadiiba imika bilow tahay ayaa loo xareeyay. yani gabadhaasi yar waxay la kulantay cunf iyo dhibaato ninaan raali ka ahayn iyadoonba guur wax ka garanayn ayaa loo xareeyay ninka weyn. ninkii ka weynaana ninkaasi odayga ah ee miskiintan yar loo xareeyayna nin wacan maanu ahayn waa uu jir dili jiray yacni noloshii waa uu nacsiiyey ninkaasi bini aadankiiba gabadhaasi cuqdad ayuu qaatay heerka uu gaarsiiyey jir dil ma tiraa nolol xumo ma tiraa bahdil ma tiraa. nin haddaba adigu si kasta ahaatee ninkii asaga ahaa muddo markii uu qabay gabadhiina wax uu ramaanay qaadin ayaa adigu garamaayo se wax u dhaceen waa ay kala tageen. gabadhiina waxay ku soo laabatay gurigoodii balse waxay soo laabatay gabadhii oo bilaan naxariis ah. gabadh miskiin ay ahayd markay soo noqotayna gabadh waxay soo laabatay bilaan naxariis ah oo aan hooyadeed danka kaleyn aabaheed dan kala hayn maxaan ku dhahdaa walaalkeed dan kala hayn. intaasiba cadow ayay u noqdeen dhankeeda. hooyadeed iyo aad ku jeclayd naxayb ayay u qaatay aabaheed adduunka iyagu necbay walaalkeed wuu garaaci jiray laakiin imika asaga ayay garaaci jirtay. mar alla markuu faraha la soo galo waxa ugu dhow jaambad ma tira gidistaata tira waxa ugu dhow ayay saari jirtay. intaasi oo jeer ayay dhulka la dhacday kana masiibo ka daran ayuu ahaayay gawdaasi ayay iska saari jireen. haddaba maalin maalmaha kamid ah ayay gabadhii ayada ahayd waxay la heshiisay gabdhihii kale walaalahood. waxay ku tiri horta ninkan wiilkan yare walaalkeena wuxuu horta faa'iido uu noogu fadhiya hadana kuma fadhiyo dib unbuu nolol dul joogayo gawda unbuu 24 ka nagu hayaa maxaa faa'iido ka sheeganaysa maxay tahay ay mid kasta ay tiri aniga bashalay buu dhabarkayga dhuftay aniga waa habeen hore gidaarkayga soo gooy mid walba waxay ka sheegtay kuma aan jirinba mid tiraahda aniga wuu jeceliya intuba wax ay ka sheegaan. gabadhii ayaa hadaba waxay ku qancisay inaanay sidan nolol ahayn loona baahan yahay inaanu gabigiisa bedelo. bismillah dilla ya oo dilkaasi waa adag yahay
aduu gabadh ka weyn bay ahayd waxay ku qancisay in ay dilaan maalin buu mid kamid ah faraha la soo galo garaac studio way ku soo urureenoo mid dishaan bay siraadeen laakiin gebigiisa inta isugu tageen ayay jukaliyeen mid kab ku dhufata mid lugaha ka qaniita mid jiita adigu way iska celiyeen haddaba maalinta ay dhibtani dhici doonto ayaa islaantii hooyadood waqtigaasi guriga ka maqnayd waxaa loo sheegay haddaba islaantii oo dibadda joogta ayaa gabdhahani soo aragtay u sheegtay oo waxay ku tiri nahablaayo hoonigii arkayay gabdhahaadii gebigooda oo gaadhi sii raacayo si ama baxay maxaa xaggee u socdeen maanta yaa gabdhahaygima sii ama baxay haa way yaabtay orod bay guriga ku timi gurigii markii ay soo gashay oo dhawaaqday cid la hadlaysa ma jirtaba markiiba waxay la xidhiidhay odaygii aabahoodaha waxay ku tiri gabdhihii way baxsadeen way carareen gaari ayay raaceen bal inay gaari raaceen ayaa la sheegay bal soo carar ninkii odayga ahaaba soo cararay way baxsadeen bismillah sacuudiyaankii carabtuna waxa weeyaan gabdhaha dhagax ayay ku yihiin gabadhu inay baxsato oo soo socoto sharaf dhac ayay sidoo ka tahay ma gabadh odayga cararaya ayaa guriga yimi markii uu sidaasi u soo galayba wuxuu soo abaaray qolka wiilkiisii oo ku garaacay oo ka furi waayay albaabkii wuxuu ku furay deetana gurigii markii uu sidaasi u galay odaygii asaga ahaa indhihiisu waxay qabteen wax uuna weligii arag wiilkiisii kaliya ta ahaa uu dunida ugu jeclaa oo waxa uu arkay mayd haba ahaadee arrinta kasii argagaxa badneed ee odaygii morodilaaca ku rida ee meeshii kaga dhaqaaqi kari waayay ayaa waxay ahayd waxa uu arkay wiilkiisii oo mayd ah oo yaalla iyo madaxiisii oo garab yaalla bismillah wiilkiisii iyo madaxiisii oo inta laga jaray la garab dhigayba iyo dhulkii oo wada dhiiga jirkiisii kale gebigiisiiba waxaan ku uri mindi baa lala dhacay meel oo caafimaad qabta ma jirtaba laa xawla walaa quwata illaa billah odaygii ayaa halkii baroor iyo oohin iyo qaylo qabsaday islaantii baa soo carartoon ogeynba inuu wiilkeedii guriga ku jiray islaantii ayuu ku yidhi waa soo gelin iga joog albaabkii wuu soo xiray biliiska ayuu la xiriiray biliiskii markay meesha yimaadeen biliiskii laftirkooda ayaa waxay indhahooda qabteen yaab ku noqday waxaanay weligood arag ay meesha ku arkayaan markiiba afraadii guriga ayay weydiiyeen see wax u dhaceen yaa guriga joogay odaygii ayaa u sheegay gabadhihii gabdho ayaa guriga jooga gabdhihina way baxsadeen markiiba biliiskii ciday ka shakiyeen waayo dee waa gabdhihii oo guriga isaga cararay maadaama ay gabdhihii guriga ka baxsadeen dee tuhunka koowaad waa ayaga cidda laga shakinaya waa ayaga marka sidii ayaa gabdhihii tuuladaasi kale u tegeen ayagoo isla mar ahaantaan isku dayaya inay dhuuntaan haddaba markii la qabtay ee la weydiiyey inay ayagu ka dambeeyeen iyo in kale markiiba gabadhii weyneed ayaa qaratay waxay u sheegtay inuu wiilkani kadeeday uu nafta u dhibay sidoo kalena intaasi waxay u raacisay dilid iyo jirdil u geysan jiray arrin aan ahayn arrintaasi iyadu waa halkeedu waa wax laska garanay laakiin arrintaasi ka dugan oo uu dul qaadan kari waayay ayuu ugu sameeyay tiri aniga walaashiya ayuu damcay sidaasi awgeed maadaama uu damcay isku dayay inuu kufsado ayay walaaladayna arkeen sidii ayaanu ku dilay dee hadishaane maxaad intaasoo nabar ugu geysateen maxaa waxa cadaawada intaa lagu qabteen maxaad ninka u jarjarteen waan isugu tagnay mid kasta mindiyo soo qaadatay intii la gaari karaysa gacanteeda ayay la gaadhay markii dambena gabadhii ayada ahayd ayaa waxay tiriba dambiga aniga kaliya ta ayaa geystay walaaladii iska fasaxa hase ahaatee gabdhihii walaaladeed ayaa iyaguna ku adkaystay inay ayaguna kula jireen dambiga marka afartoodiiba xabsiga ayaa loo taxaabo waa la xiray arrintii runtii waxay ku noqotay argagax aabahoodna waxa uu soo istaagay hal go'aankaasi oo ah in la qasaaso oo la dilo ayagana maadaama wiilkii kaliyaata ya carabtu wiilashaasay u jeceliyeen ninkii odayga ahaa wuxuu taagan yahay marba hadday wiilkayga iga dileen ayaga nolol uma taalle dila ayagana hal la dilo islaantii waxay soo taagantahay ma ha iga dilina gabdhaha adduunyadii marka wiilkii hadduu iga tegay ha iga dilina markii dambe islaanta laftirkeeda ayaa cidlada u adkeysan kari weyday gurigeedii oo guriga intaasi oo sano kusoo tabcaysay caruurtii intaasi oo sano ku tabcaysay oo hal mar gurigii u cileeyay wax xabsiga loo taxaabay iyo wiilkeedii oo dhintay biliiska ayaa u tagtay oo ku tiri mar haddii gabdhaha igana xidhaan aniga dibadda wax iga yaala oo jiraane anigana igu daro xidha anigoo laftirkaygu dambiil ayaan ahayo anaa ku dhiirigeliye hase ahaatee waa laga aqbali waayay ilaa dambi iskama kaa xidhayo
gabdhihiina waxay caddeeyeen inaanay iyadu wax shaqaa ku lahaynba arrinta mabaan ogeynba marka waxa caddeyd inaanay iyadu wax dambiya ku lahayn laakiin ay ka muuqatay inay adduunyadii nacday noloshii ay nacday maadaama ay gurigii cidla ku noqotayba marka dhacdadaasi la yaab ka badan ilaa gabdhihii ilaa waqti xaadirkan lama qisaasin oo lama dilin waa ay nool yihiin way xidhan yihiin arrintoodana halkaasi ayay maraysaa waa dhacdo runtii aad u la yaab badan qofkana marka nolosha lagu ciilo la dhibaateeyo wax walba ka filo waxa Soomaali ahaana dhaqan waxaan leenahay wiilasha Soomaaliyeed gabdhahooda ilna xariisa kuma fiirinayaba 24 maalintii qalad gasho dhaydaas ka saaraya arkimaysid asagoo oo la faraxsan la kaftamaya yacni kalgacaylkii walaaltinimo oo muujinaya qofkana qalbi ayuu leeyahay haddii aad naxariis iyo wanaag ka kasban weydid taagtiisa wax faa'iido uguma fadhidid ya haddii aad caqabad ku noqotid noloshiisa kaliya aad jir dilaysid yeesaysid xumaanu ka sheegaysid balse wax naxariis aanad muujinayn inkastoo ay gabdhuhu aad u naxariis badan yihiin haddana aad ayay u dhibsadaan gacan adayga faraha badan leh si kastaba ahaata saaxiibayaal qisadani halkaasi ayay ku taagan tahay muuqaalkeena maantana maadaama qisada ay halkaasi ku taagan tahay asna halkaasi ayay ku taagan yahay fadlan muuqaalka like saara share subscribe channelka dadweynaha saara aad baad mahadsantihiin maalintu haydin waxanaad inteenu muuqaalkan ka xigay sugma doonaba خير فربنا أيدي كلها خير فربنا أيدي رجينيا أدبي سلامية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته